maxay aabe u marsanayaa xumbo cad wejigiisa Okay. aabe wuxuu u eg yahay keeg hey alex ma rabtaa inaad isku daydo xumbada tag oo marsan wejigaaga haa waa yahay Alex! Carruurta looma ogola inay isticmaalaan tan wejigaaga dhaq isla markiiba wiil yarow. Taasi waa waqti joojin wiil yarow. qof baa helay waqti joojin Hey, Alex! Waan ogahay inay aad u soo jiidasho leedahay inaad ku ciyaarto xumbada xiirashada, laakiin waa kaliya dadka waaweyn. Waa mid aad u xoog badan maqaarka yar. Maqaarka aabe waa adag yahay. Maqaarkaaga aad buu u jilicsan yahay oo xasaasi ah. Sabunta ku jirta xumbada waxay ka dhigi kartaa maqaarkaaga mid engegan, cuncun leh, ama xitaa mararka qaarkood keeni karta finan cas. waan fahmay aabe waan ka xumahay waxaan kaliya rabay inaan ku ciyaaro xumbada Oh, waan ogahay. Aan tagno. wow aad u qabow waxaan rabaa inaan isku dayo maxaan dooranayaa steffi fur qaboojiyaha oh haa aad u qabow aad u nasasho leh eeg dhammaan qurxintan hadda aad baan u qurux badanahay Steffi, maxaad halkan ka qabanaysaa? Steffi, carruurtu ma isticmaali karaan qurxinta dadka waaweyn dhaq isla markiiba? waxaan kaliya rabay inaan ciyaaro oo aan u ekaado mid qurux badan sida adiga Maya, qurxintu ma aha alaab. Tag oo dhaq wejigaaga isla markiiba. Waqti joojin adiga, gabadh yar. aad baan uga xumahay eedo Waan fahmay, laakiin qurxinta dadka waaweyn waa dadka waaweyn, ma aha carruurta. Oo, waad og tahay, maqaarka carruurta waa xasaasi, waa jilicsan yahay sida caleen yar. laakiin waxaan kaliya rabay inaan ciyaaro Xaaladaas waa inaad isticmaashaa qurxin kaliya loogu talagalay carruurta. Aan ku tuso wax. dhammaantan waa aniga oh wow ma rumaysan karo indhahayga tani waa dhammaan aniga mahadsanid waan jeclahay wow eeg baabuurka weyn ee aabe Oh, waxaan ilaaway shaambada baabuurka. aan ciyaarno rogida giraangirtan dasha haye mudane giraangir ma gaari karo waxaan helay fikrad eeg hadda waan dheerahay hadda waan diyaar ahay Dasha, maxaad halkan ka qabanaysaa? obsi waxaan kaliya rabay inaan ciyaaro aabe Dasha, ma ciyaari kartid baabuur dhab ah. Soo bax. Dasha, baabuurta dadka waaweyn waxaa loogu talagalay dadka waaweyn oo kaliya, ma aha carruurta. Way weyn yihiin, culus yihiin, awood badan yihiin, aadna khatar ugu yihiin carruurta. Baabuurta dadka waaweyn ma aha alaab. Waxay yihiin mashiinno. Waxay u baahan yihiin tababar, xeerar iyo ku celcelin si ammaan ah loo wado. waan ka xumahay aabe waan fahmay waxaan kaliya rabay inaan ku ciyaaro baabuur cusub Haye, Dasha, laakiin waxaad ku jirtaa waqti joojin. Waqtigu wuu dhammaaday, Dasha. Hadda waad xor tahay. haye aabe laakiin baabuurka maxaa ku saabsan Ila soco, Dasha. Sidee ayaad u jeceshahay?
wow mahadsanid aabe tani waa cajiib waad soo dhawaatay dasha baabuurta xitaa maaha kuwa aad u qabow wow runtii waxaan rabaa inaan noqdo mid xoog leh sida aabe biyo nasasho maxaad samaynaysaa alex kaliya waxaan rabay inaan noqdo mid xoog leh sida adiga aabe haye alex laakiin kani waa qalab loogu talagalay dadka waaweyn oo loogu talagalay jidhka dadka waaweyn maaha carruurta kaliya waxaan rabay inaan noqdo mid xoog leh jimicsigu waa wanaagsan yahay carruurta laakiin waa inuu ahaadaa mid ammaan ah oo xiiso leh aan tagno wow aabe mahadsanid waan jeclahay soo soco alex soco waxaan ka caawin doonaa eedaday karinta dasha aan ciyaarno waa ku dhowaad wakhtigii qadada dasha maxaad halkan ka samaynaysaa waxaan kaa caawinayaa inaad kariso qadada eedo dasha carruurtu ma karinayaan jikada kaliya waxaan rabay inaan kariyo haddii ay sidaas tahay aan ku tuso wax kaalay ka hor intaadan ciyaarin waxaan rabaa inaad xasuusato dasha jikada dadka waaweyn waxaa loogu talagalay dadka waaweyn maaha carruurta waxay noqon karaan kuwo khatar ah weli waxaad ku jirtaa barashada jikada waxay leedahay waxyaabo badan oo ku dhaawici kara haddii aad keligaa tahay haye waan fahmay waan ka xumahay eedo waa hagaag kaalay aan ciyaarno ciyaartan waxaa loogu talagalay carruurta waa inaad ku ciyaartaa jikada carruurta sida tan si aad u nabad gasho haye hadda waxaad tahay macmiilkayga fadlan halkaan fadhiiso haa maxaad jeclaan lahayd inaad maanta cunto aan ka fikiro waxaan jeclaan lahaa inaan helo hilib iyo khudaar fadlan waxaan rabaa hotdog fadlan haye isla markiiba waan keenayaa fadlan sug dhowr daqiiqo hilibkaaga oo leh khudaar hotdogaaga mahadsanid inaad carruur noqoto oo aad ku raaxaysato waa mid gaar ah ku raaxaysta asxaabta carruurta ha iska dhigin inaad tahay dadka waaweyn sababtoo ah carruurnimada waa wakhtiga ugu quruxda badan Kenny waa Lavendra. Kenny waa Ladybug. Kenny waa Mantis. Aan isku dayno sixir. The Insecto Maya, raga, maanta ma shaqaynayo. Maya, xagee bay joogaan dhammaan cayayaankaygii? Ma tageen. Waxay ku jirtaa qolka fadhiga, ragga. Kenny waa kiniin weyn. Kenny waa Mantis weyn. Kenny waa kiniin. Waxay isku duubi karaan kubad. Taasi waa sababta dadka ugu yeeraan rollyballs. Inkasta oo aan ugu yeerno kiniin, dhab ahaantii waa xayawaan badeed sida qoolleyda, shrimpka iyo lobsterka. Waxaan u baahanahay ulahayga aan ka dhigno cayayaankan kiniinka ah alaab. Waxaan u baahan doonaa tan. Kugu helay adiga oo xun. Allah yaab. Kani waa caro.
Daaradan waxay u eg tahay Black Widow maxaad u malaynaysaan asxaabta way xishoodaan ma ahan kuwa gardarro ah waxayna qaniini doonaan oo keliya haddii la dhibo waxay sameeyaan shabag adag oo u dhow dhulka mugdiga ah indhahoodu ma fiicna sababtoo ah si fiican uma arkaan waxay isticmaalaan shabagooda si ay u dareemaan gariirka waqtigii aad ku laaban lahayd aaro ma shini weyn baa kani waa shinnidu waa kuwa si fiican u faafiya shinnidu waxay caawiyaan dhirta inay koraan iyagoo ka qaadaya ubax ilaa ubax iyaga laantood ma heli lahayn miro ama khudaar badan shinnidu waxay ku hadlaan ciyaar waxay sameeyaan ciyaar gaar ah si ay ugu sheegaan shinnida kale halka ay ka heli karaan ubax weerar shinni ha iqaniinin samayno dabin shinni waxay arki doontaa malabka waxayna ka tegi doontaa malabka ay ururisay shinnida malabka waxay ka sameeyaan malab nectar ubax waxayna ku kaydiyaan malabkooda cunto ahaan kugu helay yar oo shanqad badan fadlan ma iga caawin kartaa inaan helo dhammaan cayayaankayga oo aan mar kale u bedelo alaab ciyaareed ha sii hadlin Steffi waan ku jiraa Allah yaab kani waa mantis marar badan waxay si fiican u joogaan iyagoo si dulqaad leh u sugaya waqtiga ugu haboon ee ay ku dhufanayaan mantis waa ugaarsade xirfad leh oo qaban kara duqsiyo cayayaan iyo xataa masaska yaryar waxay leeyihiin indho waaweyn waxayna madaxa u rogi karaan ku dhowaad 1 darajo si ay ugaarsadaan hadda ma carari doontid ragga ma maqashaan codkaas sidoo kale taasi waa Ladybugs way fududahay in la arko sababtoo ah jirkooda cas iyo dhibco madow laakiin Ladybugs qaarkood waxay noqon karaan oranji huruud madow ama xataa pink sidoo kale waxay ilaaliyaan beero iyo dhir iyagoo cunaya cayayaanka yay kugu helay kani waa stag beetle iyagoo cunaya alwaaxda dhintay waxay ka caawiyaan dib u warshadaynta nafaqada dhulka cayayaanka stag ee labka ah waxay leeyihiin daan weyn oo u eg geesaha deerada taasi waa sababta loogu yeero cayayaanka stag ila soco marbeetle waa maxay tan kani waa balanbaalis habeen ma ogayd in khubarada balanbaalis habeen ay ka badan yihiin kuwa balanbaalis maalmeedka in ka badan 1 eber nooc xaqiiqo xiiso leh dharbaaxo ma cunaan dhar iyaga qudhooda waa dirxiga ay cunaan fiilooyinka dabiiciga ah ilaahayow ima qaban kartid aan socono kani waa Scolopendra caadi ahaan waxay leeyihiin 3 eber ilaa 1 eber lugood iyadoo ku xiran cabirkooda Scolopendras aad bay u dheereeyaan sidoo kale waxay jecel yihiin inay dhuuntaan kugu qabtay cayayaan yar aan socono kani waa boor waxay noolaan karaan in ka badan usbuuc iyagoo madaxa ka maqan sababtoo ah waxay neefsadaan jirkooda sidoo kale booradu waa mid ka mid ah cayayaanka ugu dhaqsaha badan ilaahayow ma ogtahay asxaabta in booradu ku nooshahay meel kasta oo adduunka ah marka laga reebo meelaha ugu qabow sida Antarctica waqtigii aad ku laaban lahayd boor kani waa shinni kaneecadu ma laha dhego ama sanbab waxay maqlaan gariirka waxayna neefsadaan daloolo yaryar oo jirkooda ku yaal
bay u xoog badan yihiin waxay qaadi karaan alaab ka culus 5 eber jeer miisaankooda haye taasi waa ku filan hadda waxaan ka bixi karaa hoygayga kugu qabtay shinni yar kani waa duqsigu waxay leeyihiin indho waaweyn oo ka samaysan kumanaan muraayado yaryar ah taas oo u oggolaanaysa inay arkaan jihooyin kala duwan hal mar iga fogow halkaan kaalay waqti sax ah xaqiiqo xiiso leh falcelinta duqsigu aad bay uga dheereeyaan tan aadanaha taasina waa sababta ay u muuqdaan inay ka fogaadaan garaac kasta cagaar guduud buluug kani waa dirxiga aan dib u noqono ugu dambayntii waxaan soo ururiyey dhammaan alaabtayda cayayaanka Hey, Steffi, tan fiiri. lo insecto dasha maxaad samaysay mar kale miyaa upsi bistro waxaan dareemayaa gaajo yar aan wax ka cunno halkan xiiso leh waa gudaha aan caadi ahayn laakiin qurux badan eeg taas hey waan joogaa halkan waan ka xumahay ma rumaysan karo in karinta uu hurdo inta uu shaqaynayo raalli iga ahow gabadhaay Maxaa ma hurudaa kac macmiilkeenii ugu horreeyay ayaa yimid bistrokan wuxuu u muuqdaa mid shaki leh sidaas darteed waxaan ku samayn doonaa baaritaan maqaayadan kac Eza ilaahayow dasha waxaan leenahay macmiilkii ugu horreeyay maxaan sameeyaa tag salaan ku soo dhawow bistrokeena kubadda hawada lagu buufiyo magacaygu waa dasha maanta aniga ayaa ku adeegaya haa waxaan jeclaan lahaa rooti ukunta iyo sawsiga fadlan iyo digaag iyo khudaar iyo burger baradho iyo cabitaan fudud ma jeclaan lahayd wax macmacaan ah haa sax waxaan qaadan doonaa jalaatada iyo shaahgeedo fadlan doorasho weyn tani waa dalabkeena esa maxaa tani ma gaari doono waqtiga tallaabo ha welwelin wax walba way hagaagi doonaan maya ma hagaagi doonto efa aan isku dayno neefsashada ubaxa iyo shumaca fudud haye inta ay caawiso si tartiib ah u urso ubax markaad neefsanayso oo si tartiib ah u dami shumaca markaad neefsanayso farsamooyinka neefsashada waxay dejinayaan maskaxdaada iyo jidhkaaga si aad ula tacaali karto xaaladaha walaaca leh mahadsanid dasha nasiib wacan dasha waqtiga karinta ukun sawsaga iyo rooti waa kuwan shaahaaga geedaha
mahadsanid cuntada waa diyaar waan imaanayaa aad u macaan adeegu runtii waa wanaagsan yahay halkan dalabkaagu wuu imaanayaa ku raaxayso cuntadaada mahadsanid him uurta macaan maxaa laga sameeyey cuntadan sideen u cuni karaa tan tani waa cuntada kubadda ugu fiican magaalada sidaas darteed ku raaxayso mudane ma shaqaynayso waxaa jira duqaan saxankayga waxaa jira duqaan cuntadayda xaggee halkaas eeg dib ma lahan ka kaxee ka tag waan ka xumahay taas mar kale ma dhici doonto aan qiimayno xakamaynta cayayaanka waa muhiim sababtoo ah cayayaanka iyo xayawaanka yaryar waxay qasi karaan cuntadaada waxayna ka dhigi karaan maqaayada mid wasakh ah waa inay hagaajiyaan aan ku bilowno saxanka labaad burger baradho iyo cabitaan fudud oo haa waxaan jeclahay inaan dhagaysto muusikada inta aan karinayo wanaagsan waa maxay urkeen maya dab baa kacay maxaan sameeyaa maya ma shaqayn caawinta dabka dab baa kacay dabka ku jira fiidiyowgan ma aha mid dab ah waxaa lagu sameeyey garaafyo iyo animasyon nabadgelyo ku joog dasha caawi waa maxay urkaas oh maya maxaa dhacaya deganow efa waan hagaajinayaa maya waan dhammeeyey waa inaad taxadar badan samaysaa ma kale raac xeerarka badbaadada waa muhiim inaad raacdo oo aad nabadgelyo ku joogto aad u xun badbaadada dabka waa muhiim maqaayadda waxay ka dhigan tahay inaad taxadar samayso si aan dabku u bilaaban iyo inaad ogaato waxa la sameeyo haddii ay dhacaan maqaayadan waxay u baahan tahay horumar cuntadu waa diyaar ku raaxayso cuntada mahadsanid waa maxay tani hal ilbiriqsi wax walba waa la xakameeyey maxaa baradho hawada lagu sameeyey oo ugu macaan waan ogolahay tayada cuntada waa mid aad muhiim ugu ah maqaayadaha sababo 3 ah caafimaad iyo xoog joogto ah ka fogaanshaha cayayaanka caloosha iyo ilaalinta cuntadaada oo macaan tayada cuntada ma fiicna dib u noqo maxaad u degdegaysaa aniga ayaa ka shaqayn doona waan ka xumahay marti qaali ah tani mar kale ma dhici doonto waa inaysan dhicin
aan qiimayno jawiga jawigu waa dareenka ama niyadda maqaayadu siiso macaamiisheeda ma fiicna waxaan rajaynayaa in tani ay macaamiisheena farxad geliso cuntada ugu weyn waa la dhammeeyey digaag leh khudaar mahadsanid dasha waa maxay taas tani lama dalbanin tani waa hadiyad ka timid maqaayadeena oo loogu talagalay martida oh wow fikrad weyn maxaa tan ma dalbanin tani waa hadiyad uu cunto kariyuhu bixiyey taasi waa mid aad u macaan mahadsanid waan ka xumahay dhibka jiir ayaa ku jira dambiishadayda ka saar hadda waan ka xumahay wax walba waan hagaajin doonaa alaabta guriga cun waxaan rajaynayaa in tani ay tahay macmacaankaaga ugu fiican efa waa soo bandhigid qurux badan soo bandhigid sidan oo kale ah ma arag horey cajiib qabo ma tagtay ugu dambayntii bistrokan ma aha maqaaxi waa masiibo waa hagaag saxda ah waxa aan u baahnaa caruur mar walba xusuusta iscaawiya oo raaca xeerarka badbaadada haddii wax qaldamaan deganow oo wada shaqeeya sidii koox salaan ku soo dhowow tiyaatarka kartoonka aniga iyo kooxdayda ayaa tan abuurnay hal 2 3 tigidh fadlan taasi waxay noqon doontaa hal eber maya kartoon kaliya oh waxaan hayaa fikrad waxaan jeclahay sawiridda oh waxaad leedahay hibo mahadsanid waqtiga nasashada bobcorn cusub oo caafimaad leh salaan maxaad jeclaan lahayd maanta hal bobcorn yar ii sii fadlan anigana sidoo kale aniguna waxaan qaadanayaa midka weyn waxaan haystaa lacag hal 2 3 4 5 hal 5 wow aad baad u mahadsan tahay xaqiiqo xiiso leh oo ku saabsan bobcorn waa in ka badan 5 ever sano jir waxaa laga helay new mexico waxaa loo isticmaali jiray cunto iyo qurxinba ilbaxnimadii hore oo xidhan jiray garlandyo bobcorn ah xafladaha mahadsanid waad soo dhowaatay salaan tigidhooyinkaaga og wanaagsan aniguna mid baan haystaa og lambarka qolkaaga waa 5 hadda waad tegi kartaa adiga sug daqiiqad
maxaa inaad cuntadaada keento lama ogola kaliya cuntada kartoonka ayaa loo ogol yahay sinimadayada kartoonka macmacaanku waa xun yahay adiga iyo ilkahaaga waan ka xumahay mar dambe ma samayn doono ma tegi karaa hadda haa hadda waad gudbi kartaa efa ali fadlan isuga gabdhaha maxaad iigu sugeen kaalay dasha filimka ayaa bilaabanaya iga raali ahow fadlan waxba ma arko sinimada lama imaan karo timo aad u dheer waxay xanibi doontaa aragtida dadka gadaashaaga fadhiya qurxintan kartoonka ah aad bay u dheer tahay ma arki karo aan ka dhigno mid yar oo gaaban hadda booqdayaashu waxay leeyihiin aragti fiican naxdin leh cuntada kartoonka looma jeedin in la cuno alice dasha waxaan tagayaa inaan raadiyo wax ka cunno badantaan ox rogow ila kaalaya albaabka 5 albaabka 4 albaabka lambarka 3 albaabka lambarka 2 iyo 1 oh kaliya eeg farshaxankan kartoonka ah waqtiga in la soo qaato cunto fudud aniga iyo gabdhaha 1 2 3 4 5 6 mim uur fiican waxay u eg tahay mid dhab ah gabdhuhu way ku farxi doonaan waxaan u malaynayaa inay tahay 10 ereyga dinosaur wuxuu ka yimid erayo Greek ah oo macnaheedu yahay masxun waxay ku noolaayeen xilligii Mesozoic kaas oo loo kala qaybiyay xilliyo Triassic, Jurassic iyo Cretaceous ma aha filimkayga ragow waa maxay taas maya cuntadaydii ma lambarka 4 baa ama lambarka 5 ha waxaan u malaynayaa inay ahayd 6 robotyadu waxay noqon karaan kuwa yar sida boodka ama weyn sida baabuur qaar ka mid ah robotyadu waxay ka baran karaan waayo aragnimadooda xirfad loo yaqaan sirdoonka macmalka ah filimkan waa maxay filim ku saabsan robotyo ka samaysan kartoon kani ma aha filimkayga waxaan u baahanahay inaan musqusha aado tan ihay waan soo noqonayaa okay halkaas degdeg musquluhu waxay u yihiin booqashooyin degdeg ah oo keliya ma aha in lagu duubo ama lagu ciyaaro taleefanada fadlan degdeg waxaan maqlay magaca labubu waxaa loo doontay codkiisa fudud ee la yidhaahdo si uu ula jaan qaado dabeecadda shakhsiyadda labubu waa dabeecad dumar ah oh mi filimkan waa maxay kani ma aha filimkayga
xagee ayaad joogtay wakhtigan oo dhan dasha ma rumaysan doontid waan lumay oo waxaan ilaaway lambarka qolka efa waxaan u malaynayaa inay ahayd albaabkan lambarka 2 haye aan tagno kani ma aha filimkeena dasha yeah this movie is about bobbies dasha qaado babarnkaaga xagee bay dasha joogtaa iyo ezan xagee bay joogaan filimku wuu dhammaaday dasha waxaan u malaynayaa in lambarka qolka iyagu yahay 5 ops efa dasha xagee baad joogteen filimku wuu dhammaaday waa sheeko dheer maalin kale ayaan kuu sheegi doonaa aan tagno ha orodka ku jirin shineemada salaan ku soo dhawow dukaankay jalaatada kartoonka ah gabdhaha aan helno jalaato kartoon ah no maya mahadsanid dasha ma ay taageere weyn oo cuntada kartoonka ah maxaad jeclaan lahayd kani iyo kan oh wasakh waxaan kuu sheegay dasha cuntada kartoonka ah looma jeedo in la cuno shineemada kartoonka ah way xiiso lahayd laakiin si dhib leh ayaan u wada joognay sababtoo ah waxaan sii wadnay inaan ilowno lambarka qolkayaga haa xitaa meel qabow sida tan waa muhiim in la wada joogo oo la raaco xeerarka aan isdaryeelno oh maya xagee baabuurtayda aadeen ha welwelin alex waan hagaajin doonaa sax miyaa ragga dabcan waxaan heli doonaa dhammaan baabuurtaada halkaan noogu sug waan soo degdegi doonaa waxaan u baahanahay baabuurtayda xaggee baan ka heli doonaa dhammaan baabuurtaan waxaan u malaynayaa inaan kala qaybsano fikrad fiican xagee ayaad u socotaa waxaan raadinaynaa baabuurta aleex ma idinla biiri karaa haa waad awoodaa 1 2 3 bilow waxaan isweydiinayaa xaggee baabuurtaas noqon karaan ilaahayow digaagan waa mid aad u qurux badan hey jooji inaad keligaa qaadato taas maahan sababta aad halkan u joogto waa runtaa gabi ahaanba waan ilaaway waa inaan raadiyaa baabuurta waxay ku jiri karaan barkadahan aan qarxino dhammaan buufinnada halkan baabuur ma yaalaan aan hubino kan xiga halkaana wax baabuur ah ma jiraan waxaa laga yaabaa in baabuurku ku jiro orbees maya halkan maaha aan hubino kan xiga tani ma xumbada ama kareemka xiirashada baabuurka halkan buu yaalaa waxaan helay baabuurka laakiin aad buu u wasakh badan yahay waa inaan wax qabtaa tani way shaqayn doontaa hadda waa la sameeyey waa inaan degdega oo aan tan u geeyaa aleex waxaan helay baabuurkaaga
xaggee baabuurtaas joogaan waxaan isweydiinayaa waxa ku jira gudaha waan helay waa inaan soo jiido ulaha si kubaduhu u dhacaan aan samayno waa shaqaynayaa baabuurka kan ugu dambeeya waa inaan ku celiyo alex halkan waxaa ku yaal baabuurkaaga jaalaha ah aad baad u mahadsan tahay Maria waad soo dhawaysay sanduuqyo qurux badan ma maqashaa taas wax baa gudaha ku jira waa maxay tani masduulaad hadda kan labaad maxaa doobo waa qabow laakiin maahan waxa aan raadinayo aan hubino kan waxaan helay wax haa waan sameeyey aan alex u celino alex gaarigaaga waa kan shaqo fiican waxaan u baahanahay inaan gaarigaas helo aan hubino barkadahan halkan waxba kuma jiraan aan isku dayno lambarka 2 gaariga halkan kuma jiro aan mar kale isku dayno gaariga halkan kuma jiro aan hubino kan buluuga ah haye aan hubino waan helay alex wuu farxi doonaa yey dhammaan gawaarida waa halkan had iyo jeer iscaawiya kuwani waa guryo sixir ah waxaad u baahan tahay kuwo badan si ay u koraan A1 A2 A3 wow shaqo fiican awoodda sixirka guryihiina way weynaadeen shaqo fiican carruurta gurigaygu waa cagaar gurigaygu waa bink gurigaygu waa buluug gabdhaha fikrad ayaan hayaa maxay kula tahay inaan ciyaarno tartanka guriga kartoonka 2-4 saac eega tartanku waa fudud yahay waa inaan helnaa alaab midabkeena ah oo aan guryahayaga ku qurxinno midabkaygu waa bink dasha waa inaad gurigaaga ku qurxisaa alaabta cagaaran Steffi alaabta buluuga ah laakiin gabdhaha degdega waxaa jira 1 daqiiqo oo kaliya waqtiguna wuxuu bilaabmaa hadda buluug waxaan raadinayaa buluug eegtan waa musquul qurux badan waxay u muuqataa mid wanaagsan waan jeclahay waxaan isticmaali karaa tan waa qol weyn aan raadino buluug waxaan arkaa buluug badan
buluug badan halkan aan bilowno. Kaalay, tag. Wow, gitaar. Waxay u muuqataa mid qabow. Aan qaadanno. Wow, teddy bear buluug ah. Waa mid aad u qurux badan. Waana buluug. Wow, maracas. Qalab buluug badan. Stiffy. Saxab hone. Waan jeclahay. Qalabka ciyaarta buluuga ah. Ajiib. Wow, laambad buluug ah. Super. Kubad buluug ah. Iyo gaari buluug ah. Qabow. Waan kugu faanayaa. Batmaan buluug ah. Iyo maroodi buluug ah. Hey gabdhaha, ma taqaan cidda tani tahay? Ah, Stitch. Shimbirkan ayaa sidoo kale buluug ah. Tani waa shimbir buluug ah. Ara, aad bay u dhif yihiin. Waxaad tahay mid aad u nasiib badan. Stiffy. Lolobop aad u weyn waana midabkayga. Stiffy, ma hubtaa inaad rabto inaad cunto? Maya, waa cunto qashin ah. Waxaan raadin doonaa wax ka fiican. Sax, carruurta cuntada qashinka ah aad bay u caafimaad darro tahay. Aan idinla qaadanno. Oh, tan waxay noqon kartaa mid faa'iido leh. Taasi waa buluug badan. Waa inaan degdegaa. Waxaan u malaynayaa inaan ururinay alaabo buluug ku filan. Aan degdegno. Aan bilowno qurxinta. Aad u jilicsan sida roog dhab ah. Waa meel aad u raaxo badan. Gabdhaha, guriga ma jeceshihiin. Aan qaadano maroodiga buluuga ah. Xagee ayaan dhigaa gaarigan? Ah, waan ogahay. Kubad lagu ciyaaro guriga. Fikrad wanaagsan. Hadda waa waqtiga gitaar. Hadda waxaad ila noolaan doontaa. Hadda waxaan haysanaa ururin buuxda oo ah alaabta ciyaarta buluuga ah iyo qalabka. Ragga, jecel fiidiyowga haddii aad jeceshahay guriga sidoo kale. Wow, kubado. Dhamaystiran. Waa mid aad u qabow halkan, laakiin waxaan u baahanahay inaan wax ku daro. Waa wax fudud oo sahlan in la sameeyo. Hadda waa aniga waqtigayga inaan raadiyo waxyaabaha casaan ah. Tani waa waxa aan u baahanahay. Wanaagsan, waxay noqon doontaa rooga gurigayga. Wow, eeg inta alaabta lagu ciyaaro ee casaan ah. Ragga, waa maxay midabka aad jeceshahay? Shaygan casaan ah wuxuu noqon karaa mid faa'iido leh. Haddii aad casaan ka jeceshahay buluug, riix like muuqaalkan. Waxaan yeelan doonaa qolka ugu quruxda badan. I fiiri, aad baan u xoog badanahay. Ma ku caawin karaa? Haa, dabcan waad awoodaa. Ma jiro wax la yidhaahdo casaan aad u badan. Maya, qorshooyin kale oo maanta ah. Oh, miskiin, maanta ma aha maalintaada. Aan bilowno qurxinta. Marka hore, bustaha.
waa quruxsan tahay horeba, laakiin wax baa maqan. Waan ogahay waxa maqan. Waa u muuqataa mid qummaan, miyaanay ahayn? Waxaan u baahanahay inaan helo wax cagaaran. Dasha, hadda waa markaa eeg inta waxyaabaha cagaaran ah ee jira. Muraayadaha cagaaran, maxaad u malaynaysaa? Wow, waan jeclahay, laakiin ma aha waxa aan u baahanahay. Tani waan jeclahay oo waan la qaadanayaa. Wow, bahal kale, laakiin waa cagaar. Waa mid aad u culus. Waxaan hayaa fikrad. Mas cagaaran. Ha baqin, ma aha mid sun ah. Waxay u muuqataa inay dhoolla cadaynayso. Yaxaas. Yay, aan la qaadano isaga. Aan raadinno wax kale oo cagaaran. Donut cagaaran, aan qaadano sidoo kale. Wax walba oo cagaar ah waan helay. Amniga marka hore. Haa, waa yahay. Waqtiga qurxinta. Sax, aan ka bilowno rooga, aad buu u jilicsan yahay. Waa mid aad u degan oo raaxo leh. Wow, eeg sida quruxda badan ee ay noqotay. Waxaan rabaa inaan arko. Waa wax yar oo mugdi ah halkan. Hadda waa ka sii fiican tahay. Dasha, waad saxan tahay. Hadda aad buu u raaxo badan yahay. Aniguna waxaan ku dari doonaa nalal qaar. Sida quruxda badan ee ay noqdeen buluug, casaan iyo cagaar. Waxaad leedahay qol wanaagsan. Oh, waa maxay taas? Maxaa ku jira? Sidee baad u furtaa sanduuqan? Ma aqaan. Waxay u muuqataa inay halkan u joogaan sabab. Waa maxay indhahaas? Haa, sax waaye. Dasha, tag oo soo qaado kaaga. Haa, way ku habboon tahay. Hagaag, hadda waa markaa. Haa, way ku habboon tahay. Fiiri cidiyaha dheer ee aan leenahay. Ka waran haddii aan guryaha isku xirno. Fikrad wanaagsan. Hello, hello. Hello, 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 waan ku maqlayaa. Hagaag. Qaado midka Dasha. Hello? Hello, waan ku maqlayaa. Ma i maqashaa? Haa. Iska diiwaan geli Vania Kids. Sidee tahay? Ka waran ciyaarta maanta. Ma ku raaxaysanaysaan? Haa, waan ku raaxaysanaynaa. Hello? Sidee tahay? Waan fiicanahay.